shirkan jaraa'id oo ay maanta magaalada Muqdisho ku qabteen abwaanada Soomaaliyeed iyo hobalada qaranka Waabari ayay kaga hadleen heshiis wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya uu la galay shirkad ganacsi oo gaar loo leeyahay kaasoo looga iibinayo qaybo ka mid ah dhulka tiyaatarka qaranka. heshiiskan wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya Asmaan Abuukar Dubbe uu la galay shirkad ganacsi oo lagu magacaabo Xawataako ayaa dhigaya in shirkadu ay 20 sano maal gashato qaybo ka mid ah dhulka tiyaatarka qaranka. heshiiskan ayaa baalmarsan amar uu horay u soo saaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya kaasoo dhigayay inaan la kireyn karin lana iibin karin dhulka dawladdu ay leedahay. qaar ka mid ah abwaanada iyo hobalada qaranka Waabari oo shirkan jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay inaysan suurtagal ahayn in la iibiyo dhul ka mid ah tiyaatarka qaranka. golaha murtida waa la ijaari waa maqli waa la gadi waa maqli waa la ijaari rabaa waa maqli waa la gadi rabaa waa maqli dulaaliina ku jiraan waa maqli warqada loo saxiixay waa la aqbali waa maqli. hal su'aalan weydii marka waxa iri masaajidka ma ku jira asaab kooka yaaliir masaajid ma kadma inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un masaajid ma kadma qofka oo hadda la rabo laf jaban in loo duugo ama mas'aan dilneen geedka loo saaro qabta la rabo masaajid ma hotel ka dhisay adi ma dumiyay hotel ma ka dhisay ma hotel ma ka dhisay jawaabtaada la soo bax haade waa batiri si dad bana u tiribe waa hooygii dhaqanka waa hooygii murtida waa hooygii ummadda Soomaaliyeed waa muraayadii dalka difaacda ummadda Soomaaliyeed ee difaacda ciidaad u fadhisaan ma jirto $250 ayaa bishii lagu kireeyay baa leeyahay waranaaba bixin karna intaas maxaa anaga naloo weydiin waayay waxa la soo maray 30 sano oo burburo oo wadankaas u baaba'sanay maalina laba hawaysan tiyaatarka waxa maanta loo hawaystay soo cilmi kala maahan iyo dadka noo keenay hoog iyo ba'a anugu dawladda Soomaaliyeed haddii aan Dubbe iyo ninka la yiraahdo Shube haddaan 24 saac jeeba lagu dhufan dawladda waa ka soo horjeesanay shalna u banaan baxay maanta ana ka hor imaanaya kaligay ummadda dhan way raacaysaa. maareeyaashii hore ee tiyaatarka qaranka Abwaan Guure iyo Cabdidhuux Yuusuf Xasan iyo maareeya ku-xigeenka tiyaatarka qaranka Cabdikariim Faarax Qaarey ayaa sheegay inaysan marnaba dhici doonin in la iibiyo qaybo ka mid ah dhulka tiyaatarka qaranka iyagoo baaq u diray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya. tiyaatarka fanaaniinta Soomaalida oo dhan baa iska leh waa meesha waa hooyga dhaqanka waa muraayada dalka waa meesha laga daawado ummadaanu maxay tahay weeye tiyaatarku ummadaanu maxay tahay meesha loo gudbiyo weeye meesha tan dhaqanka Soomaaliya loo gudbiya waxa Soomaalidu ahayd waxaan ku xumahay anu dadka khudbada waxaan ku wanaagsan codadka inaan sameeyo laakiin khudbada kuma wanaagsan inaan cod sameeyo ku wanaagsan laakiin khudbada kuma wanaagsan waxaan ku xumahay tiyaatarkii saasa oo mas'uuliyadiisa ka mid ah wixii ka mid ah dhibaatadiisa mas'uuliyadiisa aan ka mid ahay in maanta aanan ogeyn annagoo fanaaniinta ogeyn in la iibiyo tiyaatarkii qaranka Soomaaliyeed in ganacsade laga iibiyo ay maanta taaganta ma yeelino. waxaa kaloo la yaab leh wasiirka warfaafinta Professor Dubbe warqad buu qoray baraha bulshada oo idil ku jirta wuxuu ka hadlay baarka oo dayacti yar lagu samaynayo iyo meel bannaan oo laga dhisayo guri weyn oo maxaa la yiraahdaa madaxdu ay ku nasato waxa weeye nasasho ka hor meeshan ummadda waxay ugu fadhiday qiimo waxay ugu fadhiday waxa weeye ummadda laga hanuunin jiray ummadda wax looga sheegi jiray martida lagu soo dhaweyn jiray waxa aan nahay dalka Soomaaliya wuxuu yahay adduunka dadkii baray weeye dadkanu maanta marka in la hawaysto oo Shubana uu yiraahdo waan iibsanayaa Dubbana uu yiraahdo maxaa laga dhigayaa guri weyn oo makhaayad casriye ah iyo meel madaxdu ay ku nasato oo amni ku hesho qoraalka waa la idin qaybinayaa waxaasa ku qoran
markii ummaddii ay dhisatay tiyaatarka dhismihiisa iyo xarumaha dhaqanka ee dhinacyada ka xiga sida maktabadda iyo madxafka dawladdu qarash kuma bixin ummadda Soomaaliyeed hantideeda gelisay dadka Soomaaliyeed xoogooda ku dhisay waxaad ogeydeen shaqaalaha wasaaradaha maalin walba wasaarada ku qoran jirta wixii ummaddu ay dib u dhisatay oo ay badbaadsatay maanta in korkeena lagu gado la yiraahdo waa la kireeyay 20 sano la kireeyay la yiraahdo wax la aqbali karo ma dukumentiga saxaafadu waa haysataa waxa ku qoran gabadha shirkadda lagu sheegay oo laga kireeyay hadday dhimato dhaxaltooyadeeda alaha ku qoran halkaasay maraysaa dhaxaltooyadeeda ale hadday dhimato ayaa ku qoran waraaqdaas marka maanta haddii alla ku rooyaa dalkii Soomaaliyeed in la xaraasho oo xildhibaan lagu raadsho xil lagu raadiyo haddii alla ku rooyaa lagu tartamo ayay maraysaa Sadi Cabdi Taaliil Universal TV Muqdisho